بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. إن شاء الله ما توحينو كهالي دونا قابك أينو complete model أينو يقول سمين لها أينو مشروع أينو هري بلو عن كسب بلونا ضد حسوسة project 2 أينو محي برامج كإي تابس أينو قليل لهين كدينا ومحي أينو steps كأنو كحاجة analyze كأي ومحي design كأنو قليل لهين أوكي. حربادان دي حسوسية شغوين كإلا هذا أينو سوق قبلني طبعا مركو جوه الرسوا محي وحين سوق هذا نقشة دي architecture-ka waynu akhrinay waxaynu fahanay waa maxay qaabka engineer-kaas u fakiray qaabka waa maxay zoning-ka u sameeyay qaabka waa maxay units-ka u qaybsaday soo waxa garatay maaha meel kasta waa maxay unit kasta position-kiisa iyo waa maxay waxa uu la dan lahaa intaas baan soo aragnay kadib waa maxay waxaynu sameeynaa waxa loo yaqaan statistical system kaas waa maxay dabcan oo loogu talagalay inaynu qaabkii waa maxay architecture-ka inuu bedelno qaab structure si waa maxay dabcan structural engineers man nahay marka waxaan u baahanaa waa maxay qaab structure inuu bedelno si waa maxay sections aynu haysano soo wax garatay ma noqdaan columns ama noqdaan beams ama noqdaan slabs mid kasta dimensions kooda intaan la soo baxno kadibna aynu waa maxay la soo bixi lahayn qaabkanu birta u dhigi lahayn mashruucina waa maxay u fulin lahayn aynu okay marka maanta waxaan doonaynaa aynu waa maxay modelkii aynu haysanay ama DXF-kii aynu haysanay dabcan waxa ay furaan kan waa file-kayga DXF-ka ahaa waxaan doonayaa marka file-kayga DXF-kana waa maxay yarka bedelo aan intaan waa maxay u gudbin aan waxa way barnaamijka itaabsi marka waxaan doonayaa marka ugu horeysa hadaan martaan aad halkan qaybta layers-ka soo furto hadarkiisa waa maxay in layer tiro badan halkan isa kuugu yeelaan okay waxaan doonayaa marka ugu horeysa in layers-ka aan isticmaalayo bas aan waa maxay ku soo reebto layerada kale taan u baahnayna inaan meesha ka saaro si waa maxay file-ka DXF-ka waa maxay khafiif ugu noqdo markaan barnaamijka itabsan la galuusan barnaamijka culays badan uu saniga noqon marka dabcan fileska ama waa maxay layers-ka aan isticmaalin waxaan ka soo hormarsanay waa maxay ET baan ku hormarinaysa dadib waxa xasuusato aad si waa maxay uu soo gaabina waa maxay ETABS marka file waa maxay layer kasta oo ku qoran tahay ama ay ka horeyso wax loo yaqaan ET wanu deysanayna laakiin fileashan kale hash iyo ST iyo WE iyo WF soo waxa garatay ma a.beam iyo kuwan waxaan dhan waa maxay file aynu isticmaalayna ma marka aan doonayna meesha ka saarnayno marka amar waxa jira muhiim ah amarkan waxa la yiraahdaa barge okay barge baad haysaa kadib waxa dhaysaa dhammaan layers ko dhan bu click sa kugu siiyay kadib waxa dhaynaa barge all aynu soo awleenahay okay hadarkiisa waxa weeye wax yar kadib inuu waa maxay barge-gu saas kugu activate gareeyay marka dareemaysa halkan waa maxay barge all hadda waa maxay active ku ahayn marka okay close ayaan soo leenahay hadaynu soo furno hadarkiisa waa maxay in wali layers-ka wali meesha ku yeelaan okay marka layers-ka hadii aysan ka bixin meesha cilad waa maxay layers-kan waa layers jira laakiin waxba ku dul sawiran okay barge marka barge wuxuu ka saaraya waxa weeye layer-ka aanan waa maxay magaciisa kaliya meesha uu ku yaalo kadibna waa maxay gudihiisa aan waxba aysan ku sawiran marka waxaanu sameeynaa waa maxay waxaanu iska xiraynaa aynu waa maxay kuwa kan ET ay ka horeyso aynu waa maxay waxaan dhahaynaa waa maxay layer off aynu dhahaynaa si waa maxay aynu la soo baxna waa maxay kuwa kaliya kuwa kale to inoo soo haray marka waan ayaan iska wada xiraya dhamaantood layer off ayaan ka wada dhigaya okay off marka ka dhigo kuwan kale to waa maxay aan u baahanahay inaan meesha ka saaro ayaa waa maxay la soo baxaya marka mid kasta markaan click saaro waxa dareemaysaa waa maxay kan oo kale hash baan furay hadda kale ST aan furay ST waxa darkiisa waa maxay haddaan saan dhankan waa maxay aan saan kale ugu soo durka darkiisa waa maxay in waa maxay wax ku soo guran yihiin ay hadii waa maxay midalan aynu kan kale soo ay WE ay ku qoran tahay aynu fiirino waxa dareemaysaa in calaamad X ku soo baxday mid kasta waxa dareemaysaa waxa uu soo guran sidoo kale AP iyo column intaas waa maxay uma baahneen marka okay marka intaan waa maxay saan intaan mid kasta waxba ay ugu soo warnaa marka maxaan sameeynayaa ayagoo ma select soo dhahaya kadibna delete ayaan iska dhahayaan iska delete ayaan okay select ayaan soo wada saaray ayagoo dhan kadibna waxaan dhahayaa delete ayaan iska dhahaya okay marka maxaan sameeynayaa hadeertaan waxaan sameeynayaa waxa weeye inaan mar labaad aan dhammaan layers-kayga aan waa maxay dib u soo furto layers-kayga dhan hadda dib u soo fur layers-kayga markaan dib u soo wada furto waxaan doonayaa hadda inaan mar labaad aan barge dhaho soo maxay hadeertaan khalaas kuwa aan waa maxay ka wada dhiliiday ay sameeyay iga baxday marka hadaan close soo dhaho kadib waxay radaan soo furxad arkaysaa waxa weey in waa maxay ay wali hash iyo waxa ay haraya waa maxay iyo AP marka labadan waa maxay kan waa kee barnaamijku ku yimid 0 ay ku qoran tahay waa default way ka wax ma tirtiri kartaa layerkaas marka labadan hadda ay haray ku leeyahay marka dhimana labadaas ay point kale tay wax ka soo guran yihiin laakiin hadda ima muuqdanay marka mushkiladii ugu abuuramayaan ay tabtaas insa ugu deysanayaan marka step kale badan rabaa inaan iska hubiyo waxa weeye inaan waxaan doonayaa aan iyaga select ayaan soo dhahay control C ayaan leeyahay aan waxaan la soo baxayaa waa maxay file cusub saan oo kale taa drawing cusub baan soo furanayaa طبعا waxaan isticmaalayaa barnaamijka AutoCAD ka caadiga ah AutoCAD ASD ama structural detailing ka
ayaan isticmaalaya marka it's okay hada AutoCAD caadiga isticmaashay hada barnaamijkan isticmaashay markaan saan kale u soo furto waxaan doonayaa marka in aan point kamid ah pointiyada in 000 aan dhigo waa muhiim laana waxa loo doonayaa waa maxay coordinateska 00 waa in coordinateska 00 halkaas waa pointigaas ku yaala hadii kale to barnaamijka eTabs markaad u dhigto aad import tiraahdo DXF kaaga position khaldan buu ku dhigaya okay marka maxaan sameynayaa move ayaan leeyahay aan kadibna waxaan leeyahay waxa ii dhigtaa 0 move marka pointiga horta marka xadidanaya sorry pointigan xadidanaya waxaan leeyahay select all kadibna move ayaan leeyahay waxaan leeyahay move مثلا waxaad ii qabataa waan leeyahay مثلا pointiga kan column-ka bilowgiisaas ii qabaa waan leeyahay marka waxa ii dhigtaa 0,0,0 ii dhig baan leeyahay okay pointigaas ii dhig baan leeyahay marka waxaan dareemaysaa wax yar kadib waa maxay pointiga hadda coordinateska 00 saa igu dhigay maxaan sameynayaa save ayaan saa u leeyahay ama save as okay waxaan dhiganayaa aan مثلا waxaan dhiganayaa مثلا desktop-kayga dhigo مثلا waxaan ula baxayaa aan waxa loo yaqaano DXF file baan ula baxayaa مثلا soo xagarta halkan waxaan ku save gareynaya inuu yahay file DXF okay file DXF aan waa maxay 2000 okay marka save ayaan saa u leeyahay aan خلاص marka saas waa maxay save galaysan hadda hawshii waa maxay AutoCAD ka dhamaado iska soo xiraya barnaamijka AutoCAD ka hadda خلاص uma baahni aan no ayaan leeyahay kana no iska dheeri ma lahan waxa waa maxay save galaysan waa wada save galaysay waxay yiraan waa iska soo wada xirayaan okay marka waxaan soo furanayaa barnaamijkayga eTabs okay okay marka waa maxay eTabs barnaamijkayga ay soo furmo waxaan sameynayaa file kadibna new ayaan leeyahay model cusub ii fur طبعا interface hore baan u soo sharaxnay marka maanta wax badan interface kuma daahayna in automatically shaqadeena toos u galeynaa maxaynu sameynaynaa waa maxay tan waxaan ku fariisanaynaa MKS halkan waxaan ku fariisanaynaa waan dhahnay qaybta steelka waxba inagama galin qaybta concrete kana BS buu inoogu fadhiyaa okay waan dhahayaa marka waxaan doonayaa hadeertan waa maxay qayb planki ayaan ka dhiganayaa laana hadeertan khalaas uma baahna wax grades ee waa maxay dhamaan laana aniga ayaa waa maxay automatically waxa soo sameystay waa maxay DXF file marka waxaan ka dooranayaa plank halkan bas waxaan dooranayaa waxa weeye wax loo yaqaano history dimension-kayga ayaan dooranayaa bas marka edit system ayaan leeyahay halkan marka history-gayga marka base-ka ugu hooseeya waxaan leeyahay مثلا basement ground kana waxaan la baxayaa ground kana waxaan la baxayaa مثلا first kadibna waxaan la baxayaa second hal waxaan ku darsanayaa waa maxay right click baan leeyahay aan add history baan leeyahay aan okay marka waxaan leeyahay مثلا height code ida history height-kayga waa maxay saddex baan dhahayaa hal history iga dhig xagee baan dhigaa above 2 baan dhahayaa okay marka saas aan dhahayaa okay hal history baan halkan igu soo darayaa history-gaasna waxaan ula baxayaa aan roof ayaan ula baxayaa roof-kaygii way okay marka maxaan sameynayaa aan basement-gayga waxa sheegaa waa maxay sheegtaa buu leeyahay مثلا waxaan dhahayaa dhererkiisu waa 3.3 ground-gayga مثلا waxaan dhahayaa waa maxay iyadana waxa tiraahdaa aad مثلا 3.3 u dayso kuwa kale tana waa maxay waxaan u daysanayaa aan waa maxay saddex inay saa u yihiin okay marka waxaan sameysanayaa مثلا ground-ga kale tadaan waxaan ka dhigan karaa maadaama ground-ga aan u isticmaalayo مثلا in hadii مثلا aad haysato dhismo waa maxay qayb waa maxay tijaari ama waa maxay business oo kale ama dukaamo ama store waxyaalahaas kale aad rabto inaad ka furato height-ka xogaa ina ziyaadisid baa yufadal ilaa 4 mitir inay gaarto si waa maxay dhoti hadii waa maxay decoration iyo ceiling iyo waxyaalahaas oo kale u baahan qaybta hoose waa maxay height-ka waa maxay ku saamaxo laakiin hadeertan dhamaan dhismaheena waa maxay residential marka waa maxay 3.3 waa maxay enough okay marka saasaan okay u leeyahay marka halkan wuxuu ku leeyahay مثلا height-ka gurigaaga oo dhan waa maxay waa 15 mitir iyo intaas master waa maxay marka master history ma sameysanaysaa marka waxaan dhahayaa مثلا dhamaan dowriskaygan 1 2 3 3 dowr isku mid oo residential marka waxaan dhahayaa kan ayaa master ka dhiganayaa aan kuwa kale tana waa maxay waxaad iigu ekeysiisaa waan leeyahay aan waxa iigu ekeysiisaa waan leeyahay waxaad waa maxay wax kasto oo waa maxay ground-ga qaata idinkuna ayaan leeyahay okay ama system wax kasto ka bedelo waa maxay ground-ga qaata roof-kana waa maxay gaarkiisan u daysanayaan okay okay aan saa u leeyahay kadibna okay aan saa u leeyahay okay marka barnaamijkayga hadda saas iigu diyaariyay marka ugu horeysa maxaan sameysanayaa marka saa iigu soo furmo wax yar kadib aan sugaya wax yar intaan gudaha u galin barnaamijka intaan waa maxay aan soo qaadan waxa loo yaqaan DXF file-kii aan waa maxay hore u haystaan waxaan sameysanayaa marka ugu horeysa waxaan bedelanayaa material-kayga ayaan waa maxay definition ku sameysanaya sections-kayga definition ku sameysanaya okay sidoo kale waa maxay load patterns-kayga ayaan definition gareysanaya soo wax garatay marka dibna combination-kayga ayaan waa maxay define gareynaya marka meesha ugu horeysa waa maxay menu-ga ugu horeeyaan galaya waa define okay marka kan ka soo baxo dhamaan shaqadeeda ay dhameystirnato soo wax garatay marka ugu dambeeyay step ugu dambeeyaan waa maxay DXF file-kan waa maxay import soo dhahaya okay kana waa maxay DXF file-ka caruusada inay inoo tahay okay laana waa maxay guriga khalaas
guri kastoo la aasaaso waa maxay caruusadu qofka ugu dambeeya guriga soo gasha saa habeenka ugu dambeeya soo gasha marka waa maxay dx file-ku wuxuu noo joogaa waa maxay bimathalat alcaruusa maashi marka waa maxay booska ugu dambeeya step ugu dambeeya ka dhiganayna marka maxaan sameeynaya marka ugu horeysa materialskiga ayaan waa maxay aan define garaysanaya marka modify ayaan leeyahay dabcan hore waxaan bootyadan hore aan soo sharaxay wax badan waa maxay ku laalaaban mayo lecture-ka hore dib ugu noqon waa maxay qaybahan hadda aan buuxinaya aan fahminaad marka halkan dabcan waxa haysataa waa maxay kilogram iyo waa maxay meter marka waa maxay inaan marka ugu horeysa intaan wax kasta aan bedelin aan waa maxay units kan iska saxaan marka units ka maxaan ka dhiganayaa kan meter ayaan ka dhigayaa aan kana maxaan ka dhigayaa aan 4 cm kana maxay qalaas okay saas okay u yahay marka maxaan dhahayaa define material waxaan dhahayaa kan modify مثلا C25 أنا هستان halkan waxaan haystaa 2.5 hore baan point yadaan hore baan usoo sharaxay aan markii 10 kii hore lecture-kii ka horeeyay ama labada lecture oo dabcan ka horeysay dib ugu noqo waa maxay waa fahmaysaa aad point yadaan waa maxay qaab meeshii ka yimaadeen 2 13 16 okay halkan waa maxay waxaan dhahayaa modify waxaan leeyahay waa maxay 2500 ماشي تمام marka waa maxay okay dhankan okay saas ay yihiin okay marka waxaan sameysanayaa waa maxay okay insa u leeyahay waxaan sameysanayaa waa maxay sectionskayga marka frame sectionskan sameysanayaa marka ugu horeysa waxaan leeyahay marka ana marka ugu horeysa sameysanayaa marka concrete way okay maxaan sameynayaa marka aan waxaan leeyahay مثلا marka ugu horeysa column waa maxay 10 times 10 okay column waxaan sameysanayaa 10 cm marka waxaan ka leeyahay marka ra'yiga halkan ka leeyahay waxa weeye column-ka aan sameysanayaa marka ugu horeysa waxaan ka dhigayaa thickness-kiisa ama section-kiisa cross section-kiisa very thin yani 10 cm baan dhanna ka dhigaya dhanna 10 cm baan ka dhigaya علشان waxaan saa u sameynayaa waxa weeye hodhowtii markii aan waa maxay aan sameeyo waa maxay analyze-ka waxaan doonayaa aan column-ka bizabt waa maxay awood u qaad inaan la soo baxaan okay markii cross section-ka mid kastana waa maxay hodhowtii aan waxaan u sameeyay numuusaj ama grouping inaan sameeyaan doonayaan markii grouping markaan sameeyo kadib aan waa maxay aan column kasta waa maxay awood waa maxay soo saaray aan ku design gareeyaan yani maxaan ka wadaa aan wax yar kadib baad isugu xayiradan cancel saa u dhookan dib aan ugu soo noqonayaa maxaan rabaa inaan sameeyaan waxaan rabaa wax yar مثلا file noocan marka file noocan oo kale tan la soo baxay waxaan doonayaa marka مثلا inaan download waa maxay yani soo wax gartay steps kan download waan arki doonaa sheet saan oo kale sida loo sameeyay insha Allah isla arki doonaa marka waxaan dhahayaa waa maxay column kan oo kale waa kaasa insha Allah group kan waa maxay isku color ka waa maxay section kooda waa kaasa soo wax gartay ma C1 baan ula baxaya group kan oo kale waa maxay iyagana waa maxay soo wax gartay ma section waa maxay section kooda ama dimension kooda intaas noqonaya soo wax gartay ma C2 waan ula baxaya okay mid kasta waxaan doonayaa waa maxay inaan loo soo baxo marka waxaan doonayaa column kasta waa maxay waa maxay loadka bizabt waa maxay keenayo inaan waa maxay ula soo baxaan marka barnaamijka si aan u fahansiinayaan waxaan fahansiinayaa waa maxay maadaama villan hadartan aan ka hadlayo aan sameynayaan define baan leeyahay section baan leeyahay kadibna waxaan dhimaanayaa waa maxay frame section column baan sameysanayaa anigu waa maxay dhankayga aad waxaan leeyahay marka new property column-kayga waa concrete okay marka waxaan sameysanayaa waa maxay midka ugu horeeya waxaan ka dhigayaa column 10 cm marna ka dhigaya dhanna 10 cm baan ka dhigaya okay marka automatically waa maxay material ka tiib wuxuu igu fadhiyaa intaas marka dhanna muxuu ka yahay waan dhahayaa 10 cm dhanka kale tan muxuu ka yahay wuxuu ka yahay waan dhahayaa 10 cm laakiin waa maxay waxaan sameynayaa waa maxay stiffness kan soo wax garatay ma stiffness kan 0 ayaan ka dhigayaa okay mask iyo waa maxay weight ka waa maxay 0 aan ka dhigayaa ka anna waa maxay inuu waa maxay wax section waa maxay column kan 10 cm 10 waxaan leeyahay maskiisa weight ka midnaha ay xisaabin baan leeyahay okay midnaha ay xisaabin bizabt marka waxaan rabaa inaan la soo baxo waa maxay qiimaha aan doonayo inaan la soo baxo kadib ku design garay okay soo garatay marka waa maxay labadan mask iyo weight ka labada wasiiran ka dhiganayaan okay marka waxaan sameeynaa okay aan soo leeyaan waxaan sameeynaa oo kale to waxaan haystaa beam 25 iyo beam waxaan haystaa 12 hadana khaldanin okay marka sectionskana dib aynu ugu noqono wax yar si aan isaga hubino markaan iska hubina waa maxay layers kan haysanaa waa maxay waxaan haysanaa aynu beam 12 iyo beam waa maxay cross waxa weeye dimension 25 cm soo garatay ma sidoo kale waxaan haysanaa column-kii iyo waa maxay solid slab مثلا soo flat slab waxaan leeyahay 20 cm waxaad haysataa live load-kii aan waa maxay ugu isticmaalayna waa maxay balkoonada sidoo kale opening iyo waxaad haysataa rigid iyo waa maxay solid slab waa maxay 14 okay marka intaas aan haysanaa marka dhib ma lahan waan fahanay marka dib aynu saa ugu noqono file-kaygan saa ugu noqdaan marka maxaan sameynayaa marka ugu horeysa define frames-ka ayaan imaanaya waxaan haystaa beam baan dhahayaa wax yar sorry waxaan dhahayaa add new property kadib cross section-kayga waa kana beam-ka ugu horeeya waxaan dhahayaa waa maxay waxaan haystaa B25 okay
dhanna waa maxay waxaan dhahaynaa 25 bay u tahay dhanna waxay u tahay waan dhahayaa مثلا 60 سنتيمتر okay 60 سنتيمتر marka ana waxaan sameeynaa assumption baan sameeynaa okay marka ugu horeysa marka kadib waa maxay barnaamijka bizabt asaga isoo saaraya hadii ku save gareysmay waa maxay section kaas hadii wax ka bedelayo waa maxay save noqon waa maxay section ka gadaal baan wax ka bedelaya okay marka okay waan saa u leeyahay marka hadda stiffness modifiers ma u baahanahay aan okay طبعا haddeertaan waxaan design gareynaa waa maxay waa villa weeye marka villa marka hadii aan design gareynaa marnaba aysan waa maxay seismic load estimation aysan iyo lin خلاص waa maxay wax stiffness modifiers isticmaali mayaan okay haddeertaan waa maxay wax stiffness modifiers isticmaali kodhoti marka high rise building aan isticmaaliyo okay la odhoti waxa maxay waxaan la soo baxaya waa maxay I effective ama wax loo yaqaan inertia effective aan la soo baxayaan soo maxay aan ma isticmaalayo waa maxay inertia gross isticmaali maayo okay marka hadda ka anno waa maxay laba door saddex door aan ka hadlayo khaladaadkayga aan waa maxay aan koobi karo ama manageable ay yihiin waa maxay khalad kasto iga iman kara waa maxay marka wax hadda stiffness modifiers isticmaali maayaan okay marka saasaan okay u leeyahay isaga koobi ka qaadanayaan okay maxaan sameeynayaan waxaan dhahayaa waa maxay kana waa b2 alif okay waxaan dhahayaa waa maxay b intaas igu fadhida dhanna waa maxay waxaan dhahayaa 17 bay u tahay dhankan kale 60 cm u deyso dhima lahan ama 50 cm ka dhigan lan markan section kan aad buu yar yahay waxaan sameeynaa maxay modifiers halkan adeegsamayaan خلاص marka okay aan soo leeyahay okay marka halkan waa maxay sectionskayga columnkayga iyo waa maxay columnkii maan sameeysan sax halkan columnkii ma yaala marka maxaan sameeysanayaan add new property column ayaan leeyahay aan waxaan dhahayaa waa maxay columnka waxaan ka dhiganayaa c10 dhanna waxaan ka dhiganayaa 10 cm okay marka maxaan dhahayaa waa maxay 0.1 dhankaana waa maxay 0.1 okay marka waxaan dhahayaa laakiin waa maxay waxba stiffness modifiers kaaga adiga hay xisaabin baan leeyahay okay stiffness modifiers kaaga hay xisaabin waxa jira file saano waxa jira waa maxay isagana waa maxay section kale taan rabnaa inaan waa maxay xisaabsano section ka oo ahaa rigid ka okay rigid ka dabcan hore baan soo sharaxnay 10 dxf ka dib waxa xasuusato waxaan sameysanayaa marka rg baan usoo gaabsanayaan rg rigid soo waxa garatay maha dhanna waxaan ka dhigayaa marka 001 soo waxa garatay asagana waxaan ka dhigayaa waa maxay ka anno waxaan doonayaa waa maxay inuusan waxba ii xisaabin okay marka maxaan sameeynaa modify ayaan saa u leeyahay aan waxaan dhahayaa waa maxay dhammaan waa maxaan dhahayaa waa maxay ii xisaabin baan leeyahay mass weight ka iyo weight ka iyo labada midna ii xisaabin baan leeyahay sidoo kale tana waa maxay kana waxaan ka dhiganayaa number مثلا 4 milyan oo kale ka dhigo 4 times 10 times waxa garatay yani section ka waa maxay waxaan siyaadinayaa waa maxay soo waxa garatay energy aad u zi waa maxay sorry no halkaana waa maxay مثلا number weyn baan ka dhiganayaa ilaa 4 1 2 3 4 5 6 okay number weyn baan kale tooga dhiganayaa si waa maxay uusan odhoti uusan sorry kanaan copy lahayaan kasi waa maxay uusan waa maxay kaana waa maxay waxaan ka soo qaadayaa section wahmi ah oo aan jirin okay si waa maxay uusan igu xisaab kaliya waxaan u isticmaalayaa waa maxay transfer bas inuu loadka igu sameeyo sax marka okay insa ugu deysanayaan marka waa maxay rigidkayga iyo waa maxay columnkayga dhammaan waa maxay qaab noocaas ah waa maxay u save gareystaan okay insa u leeyahay waxaan sameynayaa haddeertaan waxa weeye inaan define gareysto aan sectionski aan haystay aan okay marka waxaan rabaa aan slab sectionski okay marka haddeertaan frame sectionski waan sameystaan slab sectionski waxaan dhahayaa waa maxay kan مثلا laftigiisa modified waxaan dhahayaa waxaan haystaa fs 20 baan haystaa okay 20 cm marka waa maxay bizabt layers ka aan haysto AutoCAD halkaan ku sameynayaan okay marka maxaan sameynayaa aan slabkayga oo kana 20 cm weeye marka nooceeb weeye soo waxa garatay ma shell thin ba waxaan dhahayaa marka waa maxay ku fariisinayaa shell thin ayaan ku fariisinayaa okay marka shell thin iyo thick iyo membrane iyo layer mid kala duwan waa maxay insha Allah lecture gaaran kaga hadli doona marka waxaan ku fariisinayaa shell thin ayaan ku fariisinayaa okay marka hadaynu haysano مثلا shell thick waa maxay dhulta markaan isticmaalayno ama aan ku analyze gareynayno مثلا hadaad haysto footing oo kale 60 cm ama waa maxay rafter haysto maxay metri 20 ama metri 30 waa maxay dhulta isticmaalaysa waxa loo yaqaan shell thick okay marka qaab noocaas oo nooceedan waa slab okay marka wax waa maxay modifiers isticmaali mayaan okay saasan u dhahay sidoo kale tan waxaan sameysanayaa waa maxay sorry copy ayaan ka qaadanayaa iyada okay mid kale waa maxay solid slab baan haystay ss14 sax ss14 baan haystay marka waxaan dhahayaa waxa weeye dhankaana waxa uu tahay 14 cm buu tahay iyadana waa shell thin base ayuu fadhida marka okay aan saa u leeyahay okay aan saa u leeyahay marka sectionskayga hadda automatically waa maxay dhamaantood diyaar ayay saa igu yiinay waxa yara waa maxay load combination kana sameeysto marka waxaan imaanaya load pattern ka ayaan imaanaya waxa automatically barnaamijku waa maxay igu sameeyaa waa maxay dead iyo life okay marka waxaan sameysanayaa مثلا wall okay wall waxaan dhahayaa waa maxay super dead weeye kadibna waxaan leeyahay add new load okay kadib waxaan dhahayaa waa maxay floor cover key isagana waa maxay waxaan u baahanahay waa maxay inaan carrifto super dead ayaan ka dhiganayaa okay soo kale tan waxaan rabaa inaan carrifo soo waxa garatay wax loo yaqaano مثلا plaster key soo waxa garatay maaha iyadana waxa weeye super dead okay aan saa u leeyahay okay maxaa ku soo raacay
wall float cover live load key kina waxay haysataa marka 1 2 3 5 sano maxaa ka saas u sameynsanaya marka hadda waxaan doonayaa halkan qayb waa maxay dead load qaybna waa live load iyo soo xagaratay qaybtan kale tan waa maxay super dead ayaan ka dhigayaan okay marka halkan hadaad fiiriso waa maxay self weight multiplier ka hadaad fiiriso waxaad arkaysaa waa maxay dead load ka number 1 buu siiyo dhammaan kuwa kale tan waa maxay 0 ayuu siiyo marka number 1 ka wuxuu halkan u siiyo waa maxay dead ka soo xagaratay ma section ka soo xagaratay asaga ayaa wuxuu ku xisaabinayaa waxa weey weight kiisa okay adu ma xisaabinaysaa okay laakiin kuwa kan waa maxay live load ka wall kuwan waa maxay ana manual u gelinaya mid kasta intuu xisaabtiisa ana manual u gelinaya laakiin waa maxay markan waa maxay cross section مثلا beam waxaan haystaan dhanna 25 ka dhanna 50 ka soo xagarta automatically barnaamijka asaga waa maxay isaga soo saaray inertiadiisa waa maxay weight kiisa dhamaan wax kasta waa maxay la xiriira soo xagaratay ma beamka asaga automatically barnaamijka ay xisaabinaya okay marka waxaan rabaa halkan wax yar in aan sharaxo aan yani halkan waxaan ku yiri cabaar ka hor waa maxay barnaamijka dead load ka soo xagaratay ma asaga ay xisaabinaya sidaas darteed waa maxay self weight multiplier ku number 1 u ka dhigayo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo waa maxay engineer ma fahmin pointigaas I need more clearance inaad waa maxay aad si wanaagsan aad fahansiisaa okay marka waxaan ku dhahayaa waa maxay mesela hadaynu dib dhowr daqiiqo aynu ugu noqono maadadii aynu dhamaanteen wada necbayn waa maxay loo yaqaan structure ka jaamacadayadii okay kan jaamacada baranaynay w slab markii mesela formula hadii aan soo qaato waa maxay w slab okay qaab noocyo u li jirta yani mesela hadii aan isticmaalayo soo xagaratay ma ultimate state method hadaan isticmaalay mesela formulada w slab mesela soo xagaratay ma waxaan dhihi jiray waa maxay in ila mid tahay ay 1.4 live 1.4 dead load plus 1.6 live load صح okay marka maxaan doonayaa hadeertaan waxaan doonayaa waxa weeye in aan hadda waxa weeye formulada aan sii furfuraan yani maxaan ka wadaa waa maxay dead load okay marka waxaan dhahayaa mesela 1.4 okay qoys baan furanaya dead load ka inaan furfurano marka dead load ka muxuu noqonayaa yani waa maxay waa gamma s oo aan ku dhuftay waa maxay thickness ka aan haysto slabka oo aan ku dhuftay waa maxay dimension ka dhanka kale waa maxay b da waa maxay breadth ga aan haysto soo xagaratay ma plus waa maxay cover ki aan haysto intaas oo dhan waa maxay waxaan ku dhufanayaa waa maxay 1.4 sa plus waxaan ku darayaa waa maxay 1.6 oo waa maxay live load okay marka calculation kan ama maxay formuladan halka aan ku qoray waxaan doonayaa wax yar inaad waa maxay la fiiriso okay barnaamijka marka waa maxay si aan anigu aan u xisaabiyo waxa loo yaqaano w slab saan u xisaabiyo maxaan u baahanahay marka ugu horeysa inaan aqaano waa maxay waxa loo yaqaano gamma s soo xagaratay ma sidoo kale waa inaan aqaano waa maxay dimensions ka aan haysto yani labada tan hadii aan saan waa maxay aan u soo calaamasado waa maxay kan waa dimension ka aan haysto sax dimension kan haysto sidoo kale tan waa maxay cover ki waa maxay wanaan isagana sidoo kale aan haystaan okay marka dabcan cover ka oo kale marka qaar banaanka oo dhigi kartaa marka qaarna waa maxay gudaha baan gelinaa marka gudaha hadda waxaan u soo gashay waa maxay calashaan si aan hal mar waa maxay 1.4 aan ugu dhuftaan okay iyo waa maxay live load kiisa marka cover ka dabcan waa maxay hadii aad halkan fiiriso waxaad arkaysaa waa maxay float cover ka ama waa maxay float cover ka waa maxay inuu 0 yiri yani ani ayaa gashanaya waa maxay float cover kayga okay marka hadeertan خلاص floor cover kuma baahna laakiin aan xisaabiyo waa maxay group kan waxaan u baahanahay inaan garanayo gamma s inaan garanayo waa maxay thickness ki inaan garanayo waa maxay breadth ki okay sidoo kale tan waa maxay inaan load combination ki aan isticmaalayo waa maxay ultimate set method marna dhanna waa maxay inaan 1.4 kaga dhuftay dhanna inaan kaga dhuftay 1.6 marka barnaamijka marka see u fahmaya intaas oo dhan طبعا hadii aad waa maxay wax yar engineer aad hore si fiican aad ila socotay waxaad arkaysaa aad waa maxay dhamaan waa maxay sampladan oo dhan aan halkan soo dhigtay qiimayaashooda hore ayaan u soo gashaan yani maxaan ka wadaa hadii qaybtan saan isaga soo xiraan maxaan rabaa marka ugu horeysa gaamaan u baahanaysa marka hadii mesela waa maxay concrete ama materialka aan define garaysa dib ugu noqdo waxaad arkaysaa waa maxay soo xagaratay ma gaamadii mar hore ama waa maxay weight unit soo xagaratay ma volume ka hore baan u sameeyaan hore baan waa maxay aan ugu cabiraan okay sax sidoo kale maxaan u baahanahay dimension kiisa marka hadii aan slabkii oo kale slabka dan define saan kale soo dhaho mesela soo xagaratay ma thickness slabka oo kale hore baan u soo carabtaa dan section ka imaado slab section ki mesela floor soo flat slab dhanka thickness ka 20 ka mesela hadii soo qaaso 20 cm hada arkaysa waa maxay thickness automatically inaan siiyaan okay sax waxa ku saara breadth-ga okay marka mesela markii aan slab saan oo kale aan waa maxay aan anigu aan hodhoti aan analyze gareynayo soo waxa garatay ma slabkayga saan oo kale markii igu yaalo area saan oo kale mesela area مثلا سانو كليتا soo xagaratay maaha rectangle ayaan haystaan okay slabkayga oo kale soo xagaratay marka مثلا waa maxay halkan column bay yaala halkan مثلا column kaleeta ay yaala halkan مثلا column kaleeta ay yaala halkan column bay yaala okay marka hodhoti marka aan waa maxay aan analyze gareynay slab saano kaleeta dabcan area مثلا slabka aan haysto halkan oo kaleeta waa maxay waxay u tahay مثلا soo xagaratay maaha 20 mitir مثلا ba yani assumption yani hada waa maxay waxaan rabaa inaan point yar aan kugu fahansiiyo bas dhanka kaleeta مثلا waxay u tahay 40 mitir ay waa maxay dhankan kaleetana ay waa maxay u tahay okay
marka hadii aan مثلا slab saan kale taan hodhoti analyze aan rabaynaan ku sameeyaan طبعا 40 mitir 20 mitir waa maxay ku sameeyaan maxaan isticmaalayaa wax loo yaqaano strips okay strips ayaan maxay slabkayga aan maxay aan u qaybinayaan okay strips marka maxaan sameeynayaan yani strip kasto one oo soo xagaratay masaan kale مثلا qalinkadan kalarka bedesho strip saan kale waxaan qaadanayaa مثلا strip مثلا column-ka oo kale soo xagaratay ma dhankaan kale waxaan dhahayaa مثلا strip kaan kale okay strip kaan kale ayaan soo qaadanayaan marka strip kan dhankaan wuxuu ka yahay waa maxay 1 mitir ayuu ka yahay laakiin thickness-ka waa maxay 20 cm buu ka yahay sax marka waa maxay strip saan oo kale taa udhatina waa maxay strip kaan oo kale taa ayaan banaanka u keensanayaan soo xagaratay ma columns-kayga oo kuwana qaab structure ayaan u bedelay maadada structure-ka بالضبط waxa dareemaysaa in maadada structure-ka aan xalinayaan okay strip-kayga ayaan saan kale u soo qaadanay kadibna waa maxay strip-kayga ayaan waa maxay moment-giisa intaan la soo baxo soo xagaratay ma aan waa maxay kadibna aan birteedii aan waa maxay RFT-gayga aan la soo baxaya sax marka waa maxay waxaan isticmaalayaa waa maxay strips saan oo kale taa strips waxay noqonayaan qayb waa maxay vertical iyo qayb horizontal marka qaab noocaas oo kale taa okay marka stripka automatically waa maxay barnaamijku muxuu fahmayaa waa maxay inuu 1 mitir u qaatay sax marka automatically marka hadda mucaadalada tan oo dhan waa maxay soo xagaratay qaybtan coverkan ana gelinaya level load-kan ana gelinaya marka hadda barnaamijku ma isticmaali karaa ama waa maxay ma soo saari karaa waxa loo yaqaano soo xagaratay maaha w slabka ma soo saari karaa ama hadii dhan kale aan u fiirino waa maxay dead load-ka kaliya ma soo saari karaa ha gamma s1 haystaa aan sidoo kale ts kina waan haystaa sidoo kale tana breadth-ga waan haystaa automatically wax iga maqan male sidaas darteed ayaa waa maxay barnaamijka dib saan oo kale aad ugu noqoto aan iskaga soo xiro soo xagaratay maaha barnaamijka saan oo kale aan ugu soo noqdo okay aan waa maxay live load-ka ama waa maxay aan u imaado load pattern-ka waa maxay dead load-ka uu number 1 iyo laana waa maxay dhammaan information-ka u baahan yahay inuu xisaabiyo oo dhan automatically barnaamijka waa uu haystaa okay marka waa maxay halkaas waqti badan kaga dhumi mayo okay marka halkaas waa maxay dead load-ka soo xagaratay man 0 ayuu insaa kugu fadhiyaa hala 1 waa inuu saa kugu fadhiyaa okay marka waxaan sameysanayaa waa maxay load combination-ki marka laba combination baan haystaa combination koowaad waxaan ula baxayaa waa maxay ultimate waxaan ula baxayaa ultimate ayaan ula baxayaan okay marka waxaan dhahayaa waa maxay ultimate-ka dabcan waxaan sameynaynaa waa maxay ultimate-ka dhammaan dead load-ka waxa ku dhufanaynaa waa maxay 1.4 live load-ka waxa ku dhufanaynaa 1.6 okay hadda dib waxa xasuusato waa maxay ultimate-ka soo xagaratay muxuu 1.5 dead load plus 1.6 live load sax marka ma maxay dead load-ka waa maxay waxaan ku dhufanayaa waa maxay 1.4 okay factor noocaas aan ku dhufanayaan aad ayaan leeyahay sidoo kale maxaa dead aan haystaan waxaan haystaa waa maxay wall-ka waa dead sax soo xagaratay 1.4 baan ku dhufanayaan aad ayaan leeyahay sidoo kale maxaan haystaan floor cover-ka asagana waa maxay waa dead sax waa dead load marka waa maxay 1.4 baan ku dhufanayaan maxaan kaloo haystaa aan blaster-ka ayaad haysataa sidoo asagana kalena waa maxay waxaan ku dhufanayaa 1.4 baan ku dhufanayaa waa maxay soo xagaratay ma dead load plus waxaan dhahayaa waa maxay waxaan haystaa aan marka ugu dambeysay wax loo yaqaano live load-ka asagana waxaad haysataa waa maxay 1.6 okay 1.6 ma ku dhufanaya asagana okay marka okay aan saa u leeyahay asagana waa maxay ultimate-ka waa maxay saas waa maxay load combination ultimate aan u sameystaa sidoo kale waxaan sameysanayaa load combination working okay working dabcan qaabkan dib maadada structure-ka waxa la maadada ee مثلا RC hadii aad waa maxay jaamacad aad ku soo baratay waxyaalahan ka hadlayo dhan بالضبط waa maxay horada u soo aragtay marka yani waqti badan kaaga dhumay okay marka working-ka waa maxay dhammaan factor-ka scale factor-kiisa waa maxay 1 way sax hal baan ku dhufanay isaga waa maxay waa maxay ma ahan wax ma haysto waa maxay wax loo yaqaano scale factor waa maxay saa ku dhufan meynaa marka isagana qaab noocaas ayaan okay saa u leeyahay okay saa u leeyahay okay load combination-kayga marka saas aan dhamaystirtaan hadda almost waa maxay model-kaygii shaqadeedii waa maxay gudaha rabeen aan ka qabsado dhan waa maxay waan qabsaday aan marka dartaan مثلا labadan waa maxay windows ma baahan halkan windows ayaan deysanayaan okay halkan windows ayaan deysanayaan marka waxaan sameeynaya marka ugu horeysa file ayaan dhahayaa dartaan waxaan u baahanaa marka inaan file-kayga dxf kan soo qaato aan file-kayga dxf kan soo qaato marka waxaan leeyahay file kadibna waxaan leeyahay import ayaan leeyahay file-ka aan soo qaadanaya nooce waxaan dooranayaa waa maxay dxf dwg file